warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar saakay waa berigii dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceelbaraf oo hoos yimaada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo ay si gaar ahaaneed kula eegteen xero military oo ay degan yihiin ciidamada Burundi oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka uu ku bilowday qaraxyo kadibna waxa xigay dagaal kafool oo u dhaxeeyay ciidamada Burundi ee saldhigii la weeraray ku sugnaa iyo xoogagii al-shabaab. sidoo kale waxaa dagaalka mar dambe ku biiray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya kuwaasi oo gurmad ahaan ugu tagay inay caawiyaan ciidamada ATMIS ee howlgalka culus al-shabaab ay ku qaadeen. wararka ayaa sheegaya in weerarkan lagu dilay ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halka ay ku dhaawacmeen 5 kale. al-shabaab ayaa dhankooda durbadiiba waxa ay ka hadleen weerarkaasi iyo khasaaraha uu geystay waxaana ay shaaciyeen in dagaalyahanadeeda gudaha ay u galeen saldhiga ayna la wareegeen sida hadalka ay u dhigeen. xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayaa duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ka sameeya guud ahaanba gobolada dalka laakiin weerarkan ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa ee dhawaanahan ay fuliyaan kooxda. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca howlgalka ATMIS oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyadoona laga cabsi qabo in khasaaraha uu sii kordho. warar ayaa sheegaya in weli dagaalka uu sii socdo oo uusan istaagin isla markaana labada dhinac gurmadyo dheeraad ah ay kala helayaan. wixii ku soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa la sii wadaag xogtan asxaabtaada kale. mahadsanideen.